dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in ay qorsheynayso sugidda amniga guud ee Muqdisho oo ay diyaarinayso 3,000 oo ciidan oo ka tirsan booliiska Soomaaliya kuwaas oo ka howlgali doona dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax laga bedelo hannaanka Muqdisho loo sugayo loona baahan yahay in qorshe cad oo amniga Muqdisho ku saabsan la keeno. wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa isna sheegay in xilligan wixii ka dambeeya xukuumadda Soomaaliya ay la xisaabtami doonto hay'adaha amniga. waxa uu intaa ku daray in wasaaradda amniga ay la imaan doonto qorshe cad oo lagu sugi doono amniga caasimadda isla markaana ay ka wada hadli doonaan gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Yariisow